عسكري mudane gudoomiye نكرم كه سلقة لقي سرك عين ورجع جينا كعبان adiga laftaad ayaan madaxweynaha kala hadli doonaa العمر سيد حين مري war way kan cid soo deysay way maay أما غلط ورواه إلا حساب طبعا بريد كان قبلنا هأورني ورحب اللي يمشي asalaamu calaykum calaykum asalaam waxaan abdillah soo wanaagsaneed khayr waa liwar xaafisaan waxaan kooxda xafiiska hantida dhulka guud qaranka sida aan maamulkaaga soo marnay maamulku markaa nagu soo wareejiyeen inaad qasnad jigaad xog kasta oo baarisood baahantiin aad kala macaamilaysaan waxaanu baaraynaa 6 bilood ee sanadkan 2005 marka hantida dhulka baan nahay su'aalahan isweydiino inuu soo sheeg soo dhawaada laakiin tii quradiina baaristu sax inuu bilaan la siin jiray waan soo kadisay way soo degdegaysaan muddo kan la yar siin jiray mood waa sax warunta laakiin nidaamku la bedelay nidaam waxa la special audit oo ku qabo hadaa soo marka si guuda adan lacagta jara waxa noo dhibtaa buugaaga socda maanta qasrada wayo dadaalka aynu wado ayuu doonayaa inuu rido maanta waxaa jarteen lacag 20 milyan oo shilinka Soomaaliland ah oo wali aan bangiga gaarin maantadan waxaan ka rabnaa lacagta ma qasadaad ku haysaa 20 milyan maanta ee jurada ku go'ay mise electronic bas isticmaashaan inuu intuu asar hadii diyo electronic bas isticmaalay sax lacagtaasi waxa kana ka kale electronic gaabi ku jirta la tus oo electronic ah way waa inay nusoo dacayna degdeg waa inaan u helaa waa tobankii saakadey oo toomil lacagtani toomil bas system ka galay way buug raxas ku jirtay 20 milyan waxa kugu maqan lacag 10 milyan lacagtaas meeday awee tobankan milyan ee baahiyaad bay iska jira dana yow yareero hoosatay waa kulli magaraas sumowgid lacagtu waxay xalaan noqoto laga isticmaalaa markay bangiga tagto marka 20 kiraad qabatay maanta waxay aad in bangiga wada galaan ka bacdi markii soo saarto laakiin 20 kii baad 10 ka isticmaash waa loo mid ma sheegayo hadeen baan ka qoranaa way 20 milyan soo kuma qoon buuga qasnada systemka soo toban kuma leeyahay si wada jira marka la kala jaro maxaa maqan 10 milyan soo maaha tidkii hore ee isticmaal inta noo saxiixin 10 milyan ay ka maqan yihiin systemka ay ma saxiix hado saxiixa waa la doonayaa waa la day faylasha kharashka inuu dhib 60 bilood waa kuwan hay'ad buugta dakhliga faylasha laga kharash 60 bilood waa kuwa faylasha markaad kharashka sameynayso soo martaa nidaamka xisaabaadka guud ee qaranka Soomaaliland aruha waa sax buugta dakhligana Soomaaliya 60 bilood waa 60 bilood oo qaadanaya iyagana waa la doonayaa waa la day waa la daba socdaayo dabinku soo galaya السلام عليكم عليكم السلام waa la doonayaa waa ayadana Allah Allah باريستا على خرشكنا صدق خلاف وجر ayaanu markaan baarinay soo saarna khalad voucherkaas ay ku qoran tahay lacag gaaraysa 130 milyan waxa lagu tagay safarkaas lama sheegin meeshii la tagay anaa ku sheegay dadkii tagay cidii tagtay intii maabaa lagu maqnaa iyo warbixinta midna lama sheegin imika ku sheegay safarka tamam inaan voucher lagu lafaagaheed waa ama waxa dhacday iska yara had qabaan waxaynu degdeg baa safarku aanu kadis oo doograysan nidaamkaas in voucherkaasi tabaashisa ay ku baxay imika ma voucher kama sameyn ama kan ka gaarsiina voucher may anu nidaamka feelka ka qaadanay waxa ku qoray 130 safar oo wax tafaasiil ah lahayn سموه قد إنه بقصة كاس وقت فاصلة لهين سموه قد إنه بعض نظام كشغل حسابات الدولة هو تكتك يا كوب حناي صفر كرم كلا فوتر كنا وفوتر الشركة قندراس سيسن واي أو مركلي قاعدنا صار خد بقولي كنت مليون من كل شيء دي بقى مثلا كل شيء سوى حكينا نظام قندراس هذا كركها وحير كل شيء هي لبيه سديتن تو سديتن أو شركة كاستو سومالي لا إن مرتو قندراس حلالة sidoo kale wixii qadaraasi ka badan 5,000 ama u dhigan 50 milyan waa in la mariyaa qandaraasada dawladda waxaan doonayaa in mariyo subaxda salaada tan maxaad ka helaysaa nidaamka hore ee khalad ku sameeyay inaad qof iska siiseen kaantu dhuraansu laba qarsanid
inuu nidaamkaas qariyay وصلع شقدان lagu badane maamulka kale ee tii shaqadan la maamulka kale tiray iyaga kala basatay laakiin ninka foojrada sameeya ee nidaamka sameeya waa adigoo qasajigii guudaani way heliin waayo waa chance mbayra boqoliyo ka tokaa shirkadda qadaraasta sabab balmartan qadaraaskii sidoo kale waxaan ku haynaa 10 milyan oo ka dhiman qasnada sidoo kale waxaan ku haynaa 130 milyan oo safar iskidka macluumaad aan ahayn hoaan mid soo degdegteen ha inta oo dhammaystiran noo sax way yaw saadi maaliya may anaga waxaan tudoro gudubna soo amray shaqada inaan ku soo dhameeno saddex isha gudood warbixin isaga oo siinana saddex isha maanta ugu dambaysa han tudoro gud baan warbixin siinayna hadlaa ku raagtay soo may anigu ka timahaan gudbinayna waa inaynu soo dacaynaa degdeg waa inaan u helaa durbaha aan qabanaayo xabsiga aan u diraa السلام عليكم مدن هانتي دروغونت وان كسلامي انيغا iyo koobtii baaritaanka inuu daday maalintii dhawey waxayna la joognaa dadka koofta waxaan rabnaa bal in warbixintii in ku dhigeysano baaritaanada mudane gudoomiye hanti dorogood aad iyo aad baad maasan tahay baarista noo dirtay 6 bilood ahayd ee ka bilaabaysay 1 January iyo ilaa bisha June 2025 goobtan tagno waxayd goob dadka la qabata kharash isticmaasha way warqadan say engagement tarkahayd waxaan u gudbinay maamulkii meesha maamulku waxay nagu xireen maamulka hooseeya sida qashiga oo kale haye shaqadii waxaan ka bilownay qasnada maalinta lacagta taalay isla maalintaas way qasadii markaan xisaabinay joonada waxa lagu qabtay lacag 20 milyan ah 20 milyan oo laan banka gaadhin way oo ahayd inay qasadu ku jirto haye qasadigu wuxuu noo sheegay in aanay hayn lacag cadaan ah oo isticmaalaan electronic haye waxaan weydiinay maadaama 20 milyan aad maanta qabatay 20 milyan naga electronic electronic naga tusay lacag 10 milyan ah waxa ku maqnaaday 10 milyan haye markaan su'aal ka weydiinay wuxuu noo sheegay inay lacagta iska isticmaaleen cadayna waanu ka qaadanay qasadiga haye qaybta dakhliga taasoo kusoo koobi hanta dhowr guud kharashkaan u galay kharashka markaan baan 6 bilood waxaanu helnay voucher lacag bixineed oo lacag soo tahay 130 milyan 130 milyan tusbal oo la yiri waa safar gudaha lama sheegin meesha la tagay haye inta cisha la maqnaa warbixintii safarka midnaba markaanu qasadiga weydiinay wuxuu noo sheegay in lacagtaas ay isticmaaleen safay doonaan ku isticmaalaan qasashku ma la socdaa nidaamka u yaala xisaabaadka dawladda ha wuxuu wala socdaa 15 sano ayaan qasada fadhiyay buu yiri cadayna waan ka qornay caddeyn waad ka qaad foosha kale mudanaha tiloro guud waa lacag gaaraysa 350 milyan oo shirkad qandaraas ay ku siiyeen shirkadaas loo marin nidaamka qandaraas bixinta dawladda markaanu qasadiga weydiinay wuxuu noo sheegay inay sida qandaraasada ku isticmaalaan waxaana baalan maray xeerkii qandaraasada qaranka waa meel la iska farateystay dhammaan cadeymo ayaanu ka soo qornay mid kale hanti dhowr guud qasrijigii dibadda ka fadhiya go'aanka gaadh iyada midna hanti dhowr guud ninkan waa qasrijigii guud maxamed cali xaabiye markaanu baarinay dakhliga kharashka isaga ka mas'uulaha haye oo ku baranaa maxamed cali xaabsiye hanti dhowr guud xabi soo dhow mudane qasrij waan dhaw yola lacagaha baxay iyo waxa aan halka ku aragno macid amar kugu siisaa jirtay haye amarka iga sareeya amar igu siiyey caddayn noo haysataa inay amarkaa ku siiyeen lacag kala saartay haye cadayda telefoon bay haydo waxaan ka wada hadlayno adu telefoonkaas baa amarka iga siiyay caday kale ma hayo way tiimkaa ku yimi miya wax dambiya ku saaraya aan lahayn aniga mayniyow deeni igu soo yara degdegeen mooyaane waqti aan yar jeclaan intee yar siya jaanis mooyaan adag fartamayso ee farsameye mooyaan wax kaloo debiyo iyaga ama garaya aniga aan ka tirsanaya miyaa dulmi iyo tacaddi kale ay ku geysteen aad maya dee shaqada ay ku soo degdegeen anoo markaas u nimid oo soo galay xafiiska oo taas waa shaqadoodii taas waan ku ammaanaynaade oo deenayo waxay ahayd tobankii yimaadaan 7 bay yimaadeen inta mooyaan kalma jiraan marka hawshaas aday kugu maqantay mar haddaad qiraal tahay caddaymo buuxana lagaa keenay qolada sharciga kula wareegaysa xadhigna waa askari
mudane gudoomiye ninkan kahe saldhigana gee sare kacayna markaa waad mahadsantihiin hawshaa soo qabateen aad baan ku ammaanayaa hawshana bartaa ka wada meel kasta oo aad wax ku tuhutaanna fasax baa u haysataan warqadeedana waa idinsinaya waad mahadsantahay degdeg waa inaan u helaa durbaha aan qabanayo xabsiga aan u diraa waayo dadaalka aynu wado ayuu doonayaa inuu rido السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وريا قدوني يور صفر ما شاء الله الحمد لله إلهي مهد ما شاء الله ما تبغى بوقشو وين بوغ شوين يا هول بول أنا ودي سيدا ذلك بوس كانوا تيمي ما لين هل كاش كو أرجنا يو أنا نمن مدح يسكوي تيمي وهل كانوا يقول أفتان كسلامي أنا هول كوشري مو يعني اسمعي نارك ساك هول يور بيجا سوق هاك شيء كل تعالى يروح حافظة وقولي أنا أدم مشان أيه اللي يقول يسيبه وحوير اللي حنا هذا وملا وحبا وخرشات يحبا قليل اللي حي سيدا يشيء وي وحرين حي نكوال حلا حي waxa la yiri marka waxba loo hanti dhowrka qabtay la yiriyo lacag ku eedeeyo kharasho adigu inuu waa halka wasaaradahan khasatay hay dii waxaan doonay marka oo dadana markii dambe la sheegayo leeyimi leeyay soo hadaliyo arrinkaadu ku fadhiistay way wadinkaadu fadhiistay waa nin fiican xilli yaraha ka baxba ku isaga fasaxayo dii marka ninkaasaan doonay hay deeyaan wixii kharashana daynu iska bixinayno hay waxaan heerka saartay wixii riseen u bixino دينا كنا الفصحى لسكده ده بول شوية نكنا نفي عم بعدها كودي نكنا دوا بتقرن ثاني نفي عم بعدها وإن على حابي نكى هوكا تعال مركب حدوني نكنا إلى هاي خير كسية إن هذا نقف الصحة هذا يرو هو يدي بيلا صح هذا الشيء هذا هديو وعمل ورد قال له تجي سكده أرض السودان لا يقول ما صنت بقشة هذا الواقع كم هاد علني أنا وحفيز كانوا حنوفر لنا inaanu hantida ummadda ilaalino aniga halkan de waxa laygu magacaabay inaan cid sii daadaayo iyo inaan haddaan cid sii deynayo ama aan cid fasaxayo dee maba shaqeeyanba kowdhi aniga madaxweynuhu wuxuu halkan igu magacaabay inaan hantida ummadda ilaaliyo kowdhi waana siyaasadda madaxweynaha sidaas dulqaad uma lihin musuq maasuq xukuumadda cusub ee wadajir iyo waxqabad ee musuqmaasuqa waa eber waa zero soo waxaad garatay maaha xafiiskaygana way ku qorantahay sultan haddaad wax akhrido soo waxaad garatay maaha maxay la duqaad lahayn musuq maasuq dulqaad uma lihin dowladdan marka la yidhaaho ruuxisdhaafin waa zero tolerance war haddaba qaata hase ahaatee ninka sharciga maraya ganaax baa laga qaadaya lacagtii baa laga doonaya ummadda ka cunay xukunna uu maraya soo waxaad garatay badaanu kuma dayn karo kumana kordhin karo anigu ismana kordhin karo kamana dayn karo oo sharci baa u yaala sharci baana ka yaala والله كنت دليل الأرض كاسر يا متشري إنه يقص الرياء وقت ما مسبق لنا إنه يقص الرياء ورحت هيك هذا ومقعابن هاي صومات قرن وأنا ذوقت هيدي أنا سلطان بانو هاي عيد عن وجود من أنا وادي هاي مسومات صغير مدحوين يجوا مدحوين ممكن لما تشوفين ما عرفتي هاي صومات قرن هاي اللي مدحوين عليها هلا دور مدحوين كلام هذا نعرف كي أنا كاه هذا هاي مين كيره هير كاه فهم جاي حافظ أبغى هذا وبدو القادم كرو حاول القادم كرو وحين كمان كوا هذا دورنا يا إيه حوران waxba meel ku qoran iyo waxba meel lagu qoray madaxweynaha uu yiri madaxweynaha sidii madaxweynaha la kala marnay madaxweynaha lama arko madaxweynaha imkiina lama joogo madaxweynaha uu ka magacaabo wuxuu loo ka magacaabin waa inaan madaxweynaha ku nimaadno fasax dulqaadkan waxa ka sheekanayso inaad kan dulqaado waa khasab ana amar bixiyay wa amar maxaa amar waxa amara amar suudaan weey waxa ciidamadaadi weey waxana sitay wariya salaam alaykum ha inaad aan ku waramo warku wasaan ku sheegay haddii aan sii deynin warmeyna kale cabdi xaafsana sii deyn kara ma sii deyn karayo xaafsadaasana sii deyn kara hadduu ord soo galo assalaamu calaykum shaqaa ii taalo kursiga heerkaas laga saaro waa markaa
ودقال هيركا هو قادتay dib ka bare marka ma inaan umada cunaabay cunna ma maxaa cunaa meel yar wax ku yar leexda baa cunaa sharciga ragga beer heeraa u fadhiya baa qulcinayaan suldan waa ku salaamaya shaqa ay taale maxamed xulidi maxkamadda xukumaysta wuxuu yiri wata halka ku qoran ay ku siyaaqiso zero tolerance for corruption kelmaddaas waa kelmadda ay ku suntan tahay boardka hantidhowrka guud ee qaranku boardkii hore waanu bedelay kole haddaa hormartaan ama xafiiska noogu timaadaan waa arki doontaan labadayada boardka gudaha iyo kadibaddana waxa weeyaan dulqaad uma lihin musuq maasuq ka gudahuna waxa weeyaan zero tolerance for corruption waa kelmadan runtii ka mid ah isagoo ka wada socono madaxweynaha qaranka hantidhowraha guud waa faray hay'ad kasta in la xisaabtamo dardaaran weyn aanu ku kala qaadanay farri weyna wuu igu furay salaamaya adiga laftaada madaxweynaha kala hadla yeena kala caban adiga laftaada ayaanu madaxweynaha kala hadli doonaa lamadan siday ahayd mari war way kan cid soo deysay la waayay maayo السلام عليكم عليكم السلام war gudoomiye سلطان ay war wallahi waa adigi oo xataa maqaaxiisha hor iska dabay maray oo xagan kaaga hadnaa halkan aan taagnaayo markaas lagu yiri bartar ka shaahaya ha ariga daban ku dhimaayay baan istilo markaas hadanaysi wallahi arrinkii hadana kama hadhi kar adu baxnaaqay ha gudoomiye maalintii waan igda hawl kulay haye oo inaga intii isniri haye si kasta uu kulaado xanaaqa hadana waxaan sidii arrinkii anagu baad sandaladu ah oo sultaan u ah haye oo diicmaamadu shidna haye adna diicmaamada meel kaga dhicin diicmaamada meel kaga dhicin way diin arrinkii adiga qudhaadu isqabato ciidamadaada ixtiraamto waa ninkii fasaxdaa baan doonayaa ay kulli xaal سلطان adiga sandaladaada ha tuugtu bay ka shaqeysaa ma uu dadka caadiga u shaqeysadii tuugta maxamed tuug baa waa ninkan aad leedahay siide horta xoolo umadeed buu cunaa waa run xaraan buu cunaa waa run khiyaam buu sameeyay waa run istamarin buu sameeyay waa run sharci ma aha ha cadeynteedina waan hor keenna hay waanu qirtay waan inaga gudubtay sharcigaana hor geynay arma la saaraya walaal uu qirtayba bas afkiis ka qaranay isaga qirtay afkiis ka qaranay isaga afkiisa ka qirtay anagu wax la saara iyo wax la masabida iyo waxa ma naqaano hay cadeyn baan hor keenna sharci baan hor keenna waraaqan hor keenna wixii xafiiskiisii baanu baanaa cadeyn buuxda ilaa aanu ka keenno qofku ma idin mana gudbino marka arrinkaasi waa waxba lagama qaban karo adiga ku dhaabo inaad wixii fiirsataa oo aad oran nin xoolo oo madad cunay siide adiga ku dhaabo kugu sharaf iyaga kula imanayo qoran ciidamad baa noo sidaa uma ka adiga ku dhaado tuugadii baba da ka ilaalisan dalka deha oo shaqada haysan buu tuugay ilaalin inaad arkaa aniga tuugta la dir haddaan tuug siin dayso tuug noqon maayo oo la ma tuug bad noqonaysa inaad roo ila faham wax سلطان ورو مeel xubaa kaaga garaacay inaad arhaa inuu ma wixii baa la khalad fahmay ummadii baa khalad fahantay deha inaad ummadii baa khalad fahantay ilaahay khayr ka dhigay warba sharcigiisa hamaro mar haddaan cidi xaq darro ku sameynay oo cidi sharci darro saarayn sharcigiisa baadna maalintii xal qaaday inaad wax ku yar kulaaday dhib male ummadda baan ma soo fadhinaa waan di qanacnay waa sida weey hays oran idikuma arkaysi qaranka iibso hays oran idikuma arkaysi shaqaha aadin hays oran idikuma arkaysi qaranka iibso nin xilqaaday qadiya nin xilqaaday qadiya